guddiga kooxda xanuunka coronavirus ayaa maanta sheegtay in ay 3 qof oo laga shakiyay loo diray dibadda si baaritaan rasmi ah loogu soo sameeyo. faahfaahin abuurtaasi ku saabsan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle. shirka golaha wasiirada Soomaaliland ee gudoominaya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa laga soo saaray qodobo dhowr ah iyadoo qodobka koowaad uu yahay in guddigii hore ee heer qaran ee ka hortagga xanuunka coronavirus lagu xoojinayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland iyadoo maanta laga bilaabana sida qoraalkan lagu sheegay uu gudoomiye ka noqon doono guddidaasi madaxweyne ku-xigeenku. qodobka labaad ayaa in maadaama dadka intiisa badan ay ku dhaqan yihiin magaalada Hargeysa in guddida heer degmo ee caasimadda iyadana lagu xoojiyo waa sida lagu sheegay qoraalkan ee wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland barasaabka gobolka Maroodijeex iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada waxaana guddidaasi gudoomin doona sida lagu sheegay qoraalkan wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha si ay u diyaariyaan goobo caafimaad. qodobka saddexaad in dib loo eego cashuur dhaafkii xukuumaddu hore u samaysay. qodobka afraad in la hakiyey mashaariicda horumarka ee ku jirta miisaaniyadda sanadka 2020. qodobka shanaad ayaa isna ah in dawladdu ay iibsanayso dhammaan raashinka wadaniga ah ee ka soo go'ay beeraha dalka waxaanu ka mid noqon doonaa sida la sheegay kaydka raashinka qaranka. qodobka lixaad ee war-saxaafadeedka madaxtooyada ka soo baxay ku qoran ayaa ah in goluhu go'aamiyey cashuur dhaaf in loo sameeyo agabka iyo dawooyinka lagula tacaalayo xanuunka coronavirus. iyo qodobka toddobaad oo isaguna ah golaha wasiiradu waxa ay go'aamiyeen in bil mushaharkeed loogu deeqo si loogu kabo dhaqaalaha xanuunka coronavirus lagula dagaalamayo lacagtaasi oo ka mid noqon doonta kharashaadka lagaga hortegayo xanuunkan la dagaalankiisa. qodobka sideedaad ee ugu dambeeya ayaa isaguna ah qodobadan golaha wasiiradu maanta ansixiyeen in ugu dambayn goluhu go'aamiyey in wixii hadda ka dambeeya shirarkii la isugu iman jiray iyo waraaqihii la isu gudbin jirayba ee xafiisyada loo bedelo habka tiknoolajiyadda si looga hortago faafidda xanuunka coronavirus. waxaana qoraalkan uu ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliland. dhinaca kale shaqaalaha ka howlgala hoteelka Sky ee koonfurta magaalada Hargeysa ayaa u xaqiijiyay VOA in la xidhay maamulkii hoteelkaasi kadib markii ay isku afgaran waayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ama guddida la dagaalanka coronavirus ee heer qaran oo doonayay in dadka halkaasi ka soo degayay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Cigaal lagu karantiineeyo hoteelkaasi taas oo sida shaqaaluhu ay sheegeen ay maamulka hoteelkuna ay ku gacan saareen ama ay diideen. dhinaca kale xubno ka mid ah golaha wasiirada ee iyagu guddidaasi ku jira ayaa u xaqiijiyay VOA in ay xidheen iyaga oo dhinaca kalena ka gaabsaday inay jawaab ka bixiyaan oo ay ka warramaan arrintaasi. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.